wejigii shanaad ee wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay waddanka Turkiga waxaa ka soo baxay 9 qodob oo labada dhinac isku raaceen. haddaba qurba joogta Somaliland ee dalka Finland ayaa afkaar kala gedisan ka qaba qodobadaasi lagu heshiiyey. qaar ka mid ah qurba joogtaasi waxaa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah Cabdilaahi Aadan Rooble gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Somaliland ee Finland inaan yar oo 18 jir 19 jir markuu yahdo Maxamed Biixi Yoonis oo 30 sanadood ku soo jira siyaasad nina siyaasadda aqoon baa Somaliland masiirteedu loo dhiibay. Somaliland masiirteeda haddii lagu aamini waayo Maxamed Biixi Yoonis ina yaroo 22 jirana lagu aamini karo. waxaan u hambalyeynaa wasiirka arrimaha gudaha, waxaan u hambalyeynaa wasiirka arrimaha dibadda, waxaan u hambalyeynaa shacabka Somaliland. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Raan arkan ayaa la yiraahdaa. In fact inkastoo aanan wada akhriin heshiiskii ay soo wada galeen labada dawladood Somaliland iyo Soomaaliya, haddana anigu dareenka shacabka Somaliland la shaqeynaya ama wax ku qaadanayo waxaan u arkaa dareen baqaweyn ay ka muujiyeen dhammaan shacabweynaha 8% magacaygu waa Jamaal Cabdilaahi Xasan gudoomiyaha Turku Somaliland community runaantii waxaan arkaa guul soo heetay qaranka magacaygu waa Suldaan Saciid Axmed wadahadallada Turkiga ka dhacay ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaan u arkaa qaar dawladda Somaliland la hoos dhigay inay yihiin waxaan arkaa dadweynaha reer Somaliland miladoodu waxay ahayd اعترافكي waxa loo diray dadaan siyaasadda waxba ka garanayn oo siyaasadda imka ugu horeyso wala hoos uu qabaa saxiix la soo kala saxiixday waxa ku qorneed Somaliland governance inaga waligeed baa heshiis caalamku wuxuu ku galnaa jamhuuriyadda Somaliland Republic of Somaliland sababta looga reebay waxay ahayd ajanda waxa soo dhigtay Soomaaliya waxay tiri saxiix min heshiiska hadii lagu soo qoro qaranka Somaliland qaran man hibay total inoo cadeeyeen heshiiskaas in la qaato ma yahayn dawladdu waxay qarinaysay marka hore garanayay wax jira meesha imada waxaan ogaa dawladdu inay wax qarinaysay imaan soo baxay هذا يوسف عثمان تلفزيون عالمي Home Cable TV Helsinki Finland.